رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. weli waxaan ku dhex jirabkii khaasatan waxaa noogu soo dambaysay dagaalkii axsaab iyo reer bani qurayda xilligaa intay ballantii ka baxeen gumaad iyo dhibaato markaa lagu haayey. wa qutila waxaa lala dilay macahum micigooda waa reer bani qurayde xuyey ibnu akhtab ninka lagu magacaabo. xuyey ibnu akhtab oo sayidu bani nadiir reer bani nadiir sayidkoodii ahaa. wa kaana xuyey wuxuu ahaa min zucamaa'i alyahuud yahuud nimankeeda zucamada ah iyo odayaashii alcishiriina ee 20 ahaa, alladiina kuwaasoo xarabuu ku soo kiciyey oo ku soo guubaabiyey qurayshan quraysh iyo wa khadfaan reer khadfaanba calaa ghaswati alaxsaab duulaankii axsaab in muslimiinta xisbi ahaan loo weerarna lagu weeraro raggii soo abaabulay oo ka soo shaqeeyo intay qurayshna u tageen reer bani khadfaanna u tageen soo kiciyey ee 10 ayuu ka mid ahaa. uma intaa kadib kaana wuxuu ahaa qad jaa'a mid u yimid ilaa qurayda reer bani qurayda wa agharaahum wuxuu ku guuyaabiyey calaa naqdi alcahdi ballanfurid. markuu raggaas soo abaabulay uu soo kiciyey oo ay soo baxeen ayuu haddana quraydo oo madiina nebiga la degan ballanna leh inaan laisweerarin ayuu ku guubaabiyey inay ballanta ka baxaan oo ay ballan furaan. xataa hadaruu ilaa ay u ballan fureen reer bani qurayda bilmuslimiina muslimiintii fii axraji saacatin saacadtan ugu dhibka badan oo min xayaatihim noloshooda ka mid. waa axraj saaca, waa saacadtan u dhib badan una culas badan oo noloshooda ka mid ah muslimiinta. wa kaanuu waxay ahaayeen qad ishtaratuu kuwa u shardiyey calayhi korkiisa. reer bani qurayda waxay sharad uga dhigeen an yakuuna macahum xuyey inuu micigooda ahaado. waayihii waa u ballan furaynaa aday naga bixinays bay dhaheen, micigeenaan ahaanayna yusiibuhu inuu asiibo maa yusiibahu wixii ii ka asiibaaya. dheef haddaan helnana waad nala helaysaa, dhib hadduu nagu dhacana waa kugu dhacaya. fa kaana wuxuu ahaa macahum micigooda fii xusuunihim gudhufaysyadooda ayuu kula jiray abnaa'a alxisaari ay socotayda. waa u ballan furay oo dhibkii iyo rafaadkii ay galeen ayuu markaa la galay. markaasuu micigooda ahaa fa kaana macahum fii xusuunihim gabaatiyaalkooda abnaa'a alxisaar iyo walistislaami isdhiibidiina micigooduu ahaa xataa qutila ilaa la dilay odaygii. waqad aslama waxaa islaamay nafarun koox oo min bani qurayda reer bani qurayda ka mid ah. nimankii reer bani qurayda qaar baa islaamay qabla nusuul soo degitaanka ka hor, intaysan soo deginba qaar baa islaamay. falam yatacarada lahum looma banbixin, waayo intaan qabashadoodii gacankudhigoodii la gaarin qaar islaamayoo alla aaminay baa jiray, tawxiidka iyo shahaadateyn ka qiray. wax dhib ah oo la gaarsiiyey ma jirin. wastuuhida hidaa laga dalbay nebiga faturikuu waa laga tegay wa aslamuu ayaguna way islaameen. wastuuhiba macnaha waxaa jira dad gallad horay u sameeyey, dad waxaa jira dad wax u taray ayagoo gaalo ah muslimiin wax u qabtay.
xataa nebigu mar allaala markuu ka baxay magaalada maka daa'if aaday soo noqodkiisii dambeeyey u suurageli weysay inuu maka soo galo. nin gaaladaa ka mid ah madaxiisu markaa ku soo galay. mudcim ibnu cadiy hadduu noolaan lahaa buu yidhi dagaalkii beder, mar allaala markii lasoo qabqabtay kuwaana uu igala hadli lahaa qurunka ah waa iga tegi lahaa. marka istuubidka waxaa loola jeedaa dad wax taray baa jiray. markaasaa rasuulka hibe ahaan looga dalbaday in midba qofkuu badbaadin karo uu badbaadiyo. fa turikuu waa laga tegay wa aslamuu wayna islaameen. dumarka iyo carruurta lama dilo. dad ayaa mar allaala marka ay ciidanka soo gasho oo ay wax baabi'inayso oo ay wax gumaadayso kuma jirto. wa qutilad waxaa la dilay imra'atu naag oo min nisaa'ihim haweenkoodii ka mid ah waa yahuudi reer bani qurayda. li'annahaa maxaa yeelay kaanad waxay ahayd qad qaraxad mid soo tuurtay arraxaa dhagax weyn bay ku soo tuurtay calaa khallaad bin suweyd ninka lagu magacaabo. faqatalatu way dishay, adina waa loo dilay. ayadiina markaa saasaa loo dilay. wa jumica waa la soo ururiyey assilaaxu hubkii waalamwaalu iyo xoolihii ay ka tageen reer bani qurayda. fa kaanad waxay ka koobnaayeen 1500 sayfan 1500 oo seefood wa 300 diracin 300 oo camburdireed wa 2000 rumxin 2000 oo waran wa 500 turusin 500 oo gaashaan iyo xajafad. xajafada laftigeeda waa gaashaan maqaar ka samaysan, maqaaraa lagu dahaaray. kaana way ka tageen. wa afaafan alaab bay ka tageen kafiiratan ee fara badan. wa aaniyatan weelal wa jimaalan geelyaal wa shiyaaha riyooyin. fa khumisa khumuskii baa laga bixiyey. marka kullu daalika intaa dhammaantood maca nakhli baa la jirtay timirtii wasadyi qafaalkii la qafaalay. fa ucطiya liraajili kii lugta ku dagaalamayey waxa la siiyey sahman hal qayb. wa lilfaarisi faariska farsku dagaalamayna 3 ashumin 3 qayb baa la siiyey. sahman linafsihi wa sahmayn lifarasihi. waayo qofka faraska ku dagaalamaya tiknikada wataa iyo qofka lugta ku dagaalamaya isku waxqabad ma aha, isku dagaalgelitaan ma aha. waxaa firfircoon oo qofka ku dagaalamaya tiknikada amase faraska markaa watale booskaasu markaa ku jiray wuuna ka khatar badan yahay. qofkii lugta ku dagaalamay ee afintrii ku dagaalamayey hal qayb baa la siiyey. kii faraska ku dagaalamayeyna 3 qayb baa la siiyey. qayb asaga leh iyo 2 qayb oo markaa faraska ah. waayo faraska wuxuu u baahan yahay xanaanayn, wuxuu u baahan yahay coos, wuxuu u baahan yahay raashin. waxaasoo dhan baa 3 qayb asaga loo siiyey. warsilad waa la diray assabaaya kuwii qafaalka ahaa waxaa loo diray ilaa najd dhankeeda. dhankii najd ayaa markaa loo diray, waa ciyaalkii iyo dumarkii iyo. fabtiica biha waxaa lagu soo iibiyey assilaaxa hub, macnaha beec ahaan baa meesha loo geeyey suuqii najd. fabatiica markaa waa la gabay biha ayaga assilaaxa hub. wastafaa wuxuu ku yidhi sal alla calayh wasalam minhaa dumarkii la soo qafaalay wuxuu ka doortay rayxaanata bintu zayd bin camr bin khunaafata gabadha lagu magacaabo. gabadha ayuu markaa ka doortay inuu rasuulku kala baxo ee markaa uu guursado. waa khilaaf inuu xoreeyuu guursaday inuu addoon ahaan u haystay labadaba, taasuu ka xushay nebiga. wastafaa waa doortay oo uu ka xushay annebiyu nebiga sala allahu calayh wasalam minha doortay rayxaana binti zayd bin camr bin khunaaf. fa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa inahu tasaraa bihaa wuu qafaashay kuwigii sarooyooyinkiis dhigiga oo qafaal ahaan buu markaa u haystayo ay maa malakat aymaanukum tii alla tilmaamay iyo wixii midigyaalkaadu hanatay tiibay markaa gashay. waa xutay baa la yidhi sidii qafaal ahaan. wa yuqaalu waxaa kaloo la yidhaahdaa actaqahaa wuu xoreeyey wa tasawajahaa wuuna guursaday sala allahu calayh wasalam. rayxaana nebigu waa guursaday waa la oodsaday bacda xajat alwadaac. xajatulwadaac markii laga soo laabtay ayaa markaa la oodsaday.
oo way ka hormartay nebiga. saasaa markaa la tilmaamaa walamaa markii tamma uu buuxsamay taamna uu noqday amru qurayda arrinteedii, amarkii bani qurayda markii laga faraxashay oo wixii la dili lahaa la dilay, gaashaanqaadkoodii, qaangaarkoodii, raggoodii, wixii sadaayo ahaa ee dumar iyo ciyaaloo la qafaalay wa kale lagu soo iibsaday. nebigana gabadha uu kala baxay rayxaana binti zayd ahayd, kadibna la yidhi wuxuu uu u haystay saranimo iyo qafaal ahaan, ama waa xoreeyo markaa wuu guursaday. markii hawshii reer bani qurayda ay dhammaystirantay ujiibat waxaa la ajiibay dacwatu sacad ibni mucaad. sacad ibni mucaad ducadiisii ayaa ilaahay ajiibay subxaanah wa tacaala. inaan horaan u soo marnay inuu sacad ducaystay. sacad hadalladii uu ku ducaystay qofkii xasuusta waxaa ka mid ahaa inuu yidhi, ilaahayow haddii duulaanada quraysh wax ay ka hareen oo ay qurayshi weli intay duulaan soo qaado ay diyaar u tahay, rabbiyow cumriga ii kaadi oo ha igu dilin dhaawacan. haddiise wax duulaana uusan harin oo markii ugu dambaysay qurayshi inay duulaan soo qaado tii ugu dambaysay ay tahay, rabbiyow dhaawacaan iyo dagaalkan saa la igu yeelay aan inta qaboobsado reer bani qurayda. asagaaba xukmiyeyda saa markaa soo marnay, asagaa markaa xukmiye reer bani qurayda. saa darteed ayaa qurayshna waatuu rasuulku markay baxeen uu yidhi, maanta wixii ka dambeeya inaan annagu ku duulanno aheen naguma soo duulayaan, aan xaggooda u socono. taasaa markaa laga ajiibay markii amarkii qurayda uu dhammaaday. walamaa markii tamma uu taam noqday amru qurayda reer bani qurayda arrintoodii, ujiibad waxaa la ajiibay dacwatu sacad ibni mucaad. wa kaana wuxuu ahaa fii khaymatin taandha dhexdeeda oo fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa ku tiilay, masaajidkii annabawi, masaajidka nebiga. liyacuudahu suu ugu soo booqdo annabiyu sal alla calayh wasalam min qariibin meel dhow. inuu markuu masaajidka soo gelayo salaad soo aadayo iyo marka uu ka baxayaba inuu nebiga sacad lugta sii mariyo ee markaa uu booqdo. saasuu markaa ugu talagalay oo khaymad iyo toondho yaa masaajidka gudaheeda loogu sameeyey sacad liyacuudahu suu ugu soo booqdo annabiy sal alla alay wasalam min qariibin meel dhow. famarat calayhi waxaa soo martay dushiisa shahran bil, hal bil ayaa korkiisa soo maray, shahran. fantaqada waxaa qarxay jurxuhu dhaawiciisii, dhaawicii uu qabaa hal mar qarxayoo bilaacay, ama wuu qarxay dheh jurxuhu, wantajara wuu dilaacay oo wuxuu ka dilaacay min labatihi, wuxuu ka dilaacay meesha labitada markaa ah, waa dhuunta meesha ee afkeeda ah yuu hal mar ka dilaacay. fasaala waxaa qubtay oo soo daatay addamu, dhiig baa ka soo daatay. marka dhiig ayaa markaa ka soo qubtay oo ka soo baxay, dhiiggaasoo alghaziiru aad u fara badan. dhiig bax baa ku dhacay sacad, xataa tuwafiya ilaa la oofsaday liajlihi dhiigbaxa sababtiisa, ama liajlihi dhaawaca sababtiisa. kaasuu markaa u dhintay sacadna waxaa xambaartay janaasatuhu sadiisa. sacad ibni mucaad janaasadiisii malaa'ig baa intay ka soo muslimiinta micigooda ayay kala qayb qaadatayoo janaasadii ay geliyeen sariirta nacashka oo ay damceen inay qaadaan, haf ay siiyeen. macnaha meel aan waxba ku jirin oo kale noqotay, macnaha meel maran oo kale. maxaa ka khafiif badan ayay dhaheen. markaasuu nebigu wuxuu yidhi, malaa'ig baa sida, malaa'igaa wadda buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. waxamalad waxaa xambaartay janaasatuhu janaasadiisii almalaa'ikatu, malaa'igtaa waxay la qaaday maca almuslimiina, muslimiinta micigooda. wahtaza waxaa ruxday oo gelgishay limowtihi geeridiisii carshu
carshu raxmaan, raxmaanka carshigiisa. allah raxmaankee naxariista badan carshigiisa ayaa ruxruxday mar allaala markii sacad uu markaa dhintay. sacad geeridiisii raxmaan wamada waxaa maray oo soo dhow waxaa maray calaa abi lubaaba 6 layaalin 6 habeen. saan soo tilmaanay abaa lubaabana waa tii qalad yar uu sameeyey. yaquudii qofkii xasuusta reer bani qurayda mar allaala markay dhaheen noo soo dir abi lubaaba, waxaan rabnaa saan ula tashano, waatuu u tegey. waxay kala tashteen inay ku degaan xukunka maxamed, haadhigiu ku dega. kadibna waxay dhaheen maxaad moodaa in nala ku samayn doono? gacantuu sidaa yidhi adabx waa lidinqalaa dhammaantii. markuu saa yidhi ayuu dareemay oo is yidhi amaad ilaahay iyo rasuulkiisa khiyaantay. suu u soo socday masaajidka tiir ka mid ah tiirarkiisa ayuu isku xiray. markaasuu dhahay ka soo bixi maayo ilaa ee nebiga iga furo sal alla calah wasalam. rasuulkaa loo sheegay. nebiguna wuxuu yidhi hadduu ii imaan lahaa oo arrintaasani uu ii sheegi lahaa, ilaahay intaan istikfaar u weydiiyo ayuu ilaahay dhaafi lahaa subxaana wa tacaala. laakiin hadduu isku xiray anigana ka furi maayo ilaa ilaahay amarka yimaayo subxaana wa tacaala. xaaladaasaa marka la sii sheegayaa. wamada waxaa soo maray oo ku dul dhammaaday calaa abi lubaabata 6 layaalin 6 habeenood. 6 habeen ayaa korkiisa markaa soo martay. ta'tiihi waxay u imaan jirtay imra'atuhu naagtiisa, fataxulluhu waxay uga furi jirtay lisalaati salaada. mar kastoo xilliga salaada la gaaro soo baxaskiisa ay markaa imaanaysay. xargii bay ka furaysaa. markay ka furto salaaddii buu gelayaa, ayadoo iska baxday. markuu salaada ka soo baxo waa imaana, haddana waa isku xiraa. saasuu markaa ahaa. wamada waxaa maray calaa abi lubaabata 6 layaalin 6 habeen oo ta'tiihu waxay u imaan jirtay imra'atuhu naagtiisa, fataxmiluhu ee fataxulluhude waxay uga furi jirtay lisalaati salaad darteed. uma yacuudu waa soo noqonayaa markuu salaada ka baxo, fayrabitu nafsahu naftiisuu ku xirayaa biljidci orgii timirta ahaa. tiirkii meesha ku yiilee timireed yuu naftiisa markaa ku xirayaa. uma kabacdi nasalat waxaa soo degtay towbatuhu towbadiisii. ilaahayaa ka towba aqbalay subxaanahu wa tacaala. uma nasalat ninkii abilubaaba ahaa xaaladaasaa markaa dhacdayoo mar allaala markay towbadiisii soo degtay way soo kala carreen dadkii. fafaara annaasu dadkiyaa ku soo xoomay oo ku soo degdegay liyutliquuhu say uga furaan. fa abaa wuu diiday xataa yutliqahu rasuula allahi, ilaa rasuulka ilaahay uu ka furo sala allahu calayhi wasalam. ilaa nebigii ilaahay uu markaa ka furo, cid kaloo iga furaysa ma leh ayuu markaa yidhi. ilaa rasuulka uu gacantiisa markaa iiga furo. fa facala waa uuna sameeyey nebiga. uu soo maray uu u soo baxay lisalaati subxi, salaadii subxeed. salaadii subxeed markuu rasuulku u soo baxay sala allahu calayhi wasalam ayaa markaa waxaa dhacday inuu nebigu ka furay xarigii ninkii abilubaaba ahaa. rasuulkaa markaa ka furay xarigii. waqad qaama almuslimuun, muslimiin howlgal ciidameed oo dhowr ah ay markaa u istaageen muslimiinta ahamuhu min quraysh. dhowr arrin oo ciidan afgii sameeyey iyo dhoolatusyay waxaa imaan doona. kuwaan soo socduu ugu horeeyo maqtalu abi raafic wa salaam bin abi xuqayq ninka lagu magacaabo. hore waxaan u soo tilmaamay nin kale oo kibir badna in hore loo sujilay. nimankaa reer aws ahna ay ku sharafoobeen dilkiisa ayaan horey u soo marnay. waa kacab ibnu ashraf. kacab ibnu ashraf ayuu ahaa, dilkiisaan soo marnay. haddana waa dilkii abi raafic, waa kunyadiisa. magaciisana waa salaam bin abi xuqayq. huwa asagu taajiru ahli xijaas, reer xijaas maalqabiinkoodii buu ahaa. reer dhulkan xijaas
taas waa dhulka maka iyo madiine iyo dhinacyada iyo kulli ayaa xijaas laisla yidhaahdaaye madiina wuu ahaa oo madax buu u ahaa. waa axadu kibaari almuxarikiina dadka soo kicinayeyna kuwa ugu waaweyn mid ka miduu ahaa, iyo walmu'allibiina kuwa dadka isku keekeenayo soo kicinayey. dadka muxarikiintee la soo kiciyo iyo dadka la soo ururiyo dadkii ku lug lahaa kuwa ugu waaweyn mid ka mid ahna wuu ahaa. ninkaa lagu magacaabo abi raafic, huwa asagu taajiru ahli xijaaz, reer xijaaz taajirkoodii ahaa. wa ra'iisu yahuudi khaybar, yahuudii khaybarna madax buu u ahaa. waa axadu kibaari almuxarikiina iyo walmu'allibiina kuwa dadka isku keekeenayey kicinayey kuwooda ugu waaweyn mid ka mid ahna wuu ahaa. lilaxzaabi, axsaabtii soo kicinayey calaa ahli lmadiina, reer madiina dushooda ku soo kicinayey inay dagaal markaa ku soo qaadaan mid ka mid ahna wuu ahaa. falamaa markii tafaraqa almuslimuuna, muslimiintu ay ka faraxasheen min alaxsaabi, dagaalkii axsaab ay gebagabeeyeen oo ay faaruqeen, iyo wa qurayda, kii qurayda, intadaba waxaa u soo baxay abiic liqatlihi dilkiisa 5 oo rijaali khasraj, 5 qof oo raggii reer khasraj ka mid ah ayaa u soo baxay. ninkaa kibirkii darada badnaa ee saa xoola qabeenkana u ahaa, yahuudda khaybarna madax u ahaa, axsaab soo kiciya dadka dagaalka madiina ku soo qaadaanna atafaraqa, markay ka faraxasheenay ka faramarmaadeen ama ay dhammeeyeenay ka faaruqeen almuslimuuna, muslimiin ay markaa u helaan liyaxuuzu, say u koobaan oo ay u helaan sharafan sharaf oo mithla sharafi alaws, reer oos sharaftoodii oo kale ah. xiina wakhtigii qataluu ay dileen ibni ashraf, wanaagay ku tartamayaan. qoladan hadday wax sameeyaan oo sharaf diinta u ah, qoladanna saasoo kale rabeen. qoladan hadday wax sameeyaan, qoladan kale wax ka sii fiican inay qabtaan oo islaamkii muslimiinta u qabtaan, tartan baa ka dhexayn jiray reer aws iyo reer khasraj. sidaa darteed ayaa ayaguna waxay dooneen reer khasraj inay koobtaan ama ay helaan sharaf ka mid ah sharaftii ay heleen nimankii reer aws markii ay dileen kacab ibnu ashraf ninka lagu magacaabo. wa wasala way gaareen haaulaa'i shantoodaaba ilaa xisnihi, dhufayskiisii oo min jihati khaybara, khaybar dhankeeda ku yiilay. xiina wakhtigii harabat ashamsu, qoraxdii ay dhacday. markii ay qoraxdii dhacday ayaa waxay heleen ay gaareen meeshii u deganaa. dhanka khaybar xisni lahaa dhufays, gabbaati, meel aan markaa loo geli karin. meeshu meel dhisan ayay markaa ahayd. faqaala qaa'iduhum, shantoodii wuxuu yidhi koodii hogaamiya u ahaa, waa cabdullaahi bin catiik ayaa la oran jiraye, makaanakum, meeshiina ii jooguu yidhi, inta igu suga idinka, waayo meesha hal albaab bay leedahay, waardiyaa jooga, suga noocaas oo kale. shantoodoo dilaysa hadday meesha galaan oo raacaane meeshay u dhaqaaqaan waa laga shakinayaa. marka caqli iyo basar ayuu keenay. faqaala wuxuu yidhi qaa'iduhum, koodii hogaaminay, cabdullaahi bin catiik waaye, wataamakum, dadkaankiina joog, waada ayuu yidhi, fain anigu munqaliqun waan tegaya, wa mutalaqifun waxaan u ceelabaysanaya lilbawaabi, waardiyahay albaabka joogaan ceelab iyo dad u samayn doonaa, lacallii si aan adkhulu u galo, si aan u galaa laga yaabaa inaan sameeyo, anigu waan tegayaa. huwa mutalaqifun lilbawaabi, bawaabi iyo waardiyaha u ceelabaysanayaa, lacallii adkhulu inaan galaa abi raafic dilkiisii salaam bin abi xuqayq ahaa. huwa asagu abi raafic taajiru ahli lxijaaz, ahlu xijaaz maalqabeenkoodii ayuu ahaa, iyo wa ra'iisu yahuudu khaybara, yahuudii khaybarna madax ayuu markaa u ahaa. wa axadu kibaari almuxarikiin, dadkii muxarikaynayey
daadaajinayay iyo walmu'allifiin kuwii dadka ku geegeynayay kuwooda ugu waaweyn mid ka mid ahna wuu ahaa. mid ka mid ah ayuu markaa ahaa lil axzaabi axzaabtii arakaynayay iskula soo ururinayay calaa ahli lmadiina reer madiinakooda si markaa duulaan loogu qaado, si reer madiina markaa loola dagaalamo. falamaa markii tafaraqa almuslimuuna muslimiintii ay faaruqeen kana farxasheen min alaxzaabi dagaalkii axzaabkii wa qurayda intaadaba waxaa u soo baxay liqatlihi dilkiisa 5 min rijaal khasraj 5 nin oo raggii reer khasraj ka mid ah ayaa markaa u soo baxay. ayagu iskama soo bixin dilkiisa ee waa amar nebiga xaggiisa ka yimid sala allahu calayhi wasalam. waayo muslimiintu nin ay dili jireen ma jirin ilaa inuu nebigu amar siiyo maahane sala allahu calayhi wasalam. marka dilkiisa 5 nin oo reer khasraj oo reer ansaareed ah ayaa markaa u soo liyaxuusu si ay ugu guulaystaan amase ay u helaan sharafan sharaf oo mithla sharafi alaws reer aws sharaftii ay heleen oo kale. reer aws iyo reer khasraj way tartami jireen, waxqabadka islaamkii muslimiintay u tartami jireen. qoladan markay arrin qiimo badan ku guulaystaan kuwana waxay ku talageli jireen ayagana taasoo kale inay markaa sameeyaan. sidaa darteed ayaa 5 nin oo reer khasraj oo hal aws aan ku jirin ay markaa u soo liyacuudu say ugu liibaanaan sharafan ay u helaan sharaf ama ay u gaaraan mithla sharafi alaws reer aws sharaftii ay gaareen oo kale ah xiina wakhtigii qataluu ay dileen reer aws kacab ibnu ashraf ninka lagu magacaabo. ilan kacab ibnu ashraf oo saanoo kale ahaa yaa horay loo soo dilay. wawasala waxay soo gaareen haaulaa'i kuwa ayaga axwaashadoodii ilaa xisnihi gabaatii kufaystii uu ka deganaa min jihati khaybara khaybar dhankeeda. xiina wakhtigii bay soo gaareen qarabat shamsu qoraxdii ay markaa dhacday. waa meel dadka ay degan yihiin, hal meel ay derbiga ku wareegsan xusni ah, hal albaab baa laga soo galaa. subaxii waa la furaa oo waardiya taagan, dadkiiba shaqooyinkooda u dareera. galabtiinna waa la soo caraawaa, kadibna waa la xiraa. qof kadib oo gelaya markaa ma jiro. xilli waxdhaca oo albaabkiina labo ayay soo gaareen. faqaala qaa'iduhum hogaamiyahoodii wuxuu yidhi, waa 5toodii kii amiirka u ahaa cabdulmatik baa la ohan jiraye yatagayaa waa mutalaqibun waa u xeeladaysanaya min dawaabi dawaabkii waardiya ninka waardiyaha ah ayaa u xeeladaysanayaaye wax yar kusugii markaa yidhi inii anigu mutalaqun waan tegaya wa mutalaqibun waa xeeladaysanaya lilbaabi dawaabkii waardiyaha ayaa u xeeladaysana lacallii adkhulu inaan galaa dhici kartee. waayo 5toodoo dubaaya hadday meesha aadaan ama ay galaan waa laga shakimaa waana la dili. fa aqbala wuu qaabilay xataa danaa ilaa uu u dhowaaday albaabka ugu dhowaaday. cabdullaahi bin cabdiid waa socday ilaa albaabkii ugu dhowaaday. uma intaa kabacdi taqadnaca wuxuu hagoogtay bisayrihi maradii jirka isku dheedheeday biannahu waxaad moodaa sidii yaqdi gudanaya xaajatahu xaajadii. qaadiga halkaa la fadhiistay, albaabka laabkiisa iyo dhinaca inta la soo socdo ah wuxuu iska dhigay nin meesha degan danna gudanaya xaajadiisa. fahatafa waxaa u soo qayliyey bihi asaga albawaabu waardiyihii baa u soo qayliyey wuxuu yaa cabdallah addoonka ilaahayo in kunta haddaad tahay turiidu mid doonaya an tadkul inaad qayliyey bihi asaga albawaabu waardiyihii baa u soo qayliyey yaa allah buu yidhi in kunta haddaad tahay turiidu mid doonaya an tadkhul inaad gasho fadkhul gal soo dabaqso fa innii uriidu ani waxaan rabaa an ugliqa albaaba ila albare. fadakala wuu galay cabdullaahi bin catiik wakamana wuu dhintay oo wuxuu ku dhintay albaabkii agtiisa meel xataa naama annaasu ilaa dadkii ay hurdeen daahilba gudjooga wiilashii kale bannaankii tafiya ilaa albaab
allaala markii ay dhammaatay xaaladda oo laga kala yaacay oo kala tegey ayuu markaa albaabkii furay. albaabkii ayuu furtay. wuxuu rabaa hadhow inuu dhaqso markaa u baxo, liyashula suu ugu sahlanaado lahu asaga alhuruuba oo cinda alxaajati xaaja agteeda. waa haddii loo baahdo in la cararana intuu furo la raadinayo wax la furfurayo in la haleelaa dhici kartaa. si aan loo soo gaarin ayuu albaabkii sii soo furtay si haddii uu ugu sahlanaado oo cinda alxaaja uma intaas bacdi tawajaha aaday ilaa beyti abi raafic gurigiisa in la dilo meesha intuugu uu degan yahay xaggiisa gurigiisii ayuu kala aaday. fakaana wuxuu ahaa cabdullah bin cati kulamaa fataxa mar kasta uu furo baaban albaab oo albaab markuu furaba aglaqahu min daakhilin daakhilkuu ka soo xiraa. albaabkanuu furaya guduhu ka xirana, ka kaluu fura haddana ilaa dhowr albaab marka la gudbo markaasaa xisnigii abi raafic la gaaraya. kadib baa qolkiisii la aadaa haddana ilaa nin aad loo ilaaliyo meel khatar ah ku jira ayuu markaa ahaa. marka cabdullaahi bin catiid waa ninkii muslimiinta shafeeda raxda u ahaa. mar kastii albaab fure ee uu galo daakilkuu markaa ka soo xirta, daakilkuu markaa ka soo xiranayaa xataa low calima, xataa haddii ay dhacdo inuu ogaado bihi asaga annaasu dadku ay ogaadaan laa yasiluuna ilayhi si aan loo soo gaarin xataa yaqtula ilaa uu dilo abaa raafic marka lagu magacaabo. xataa hadday dhacaysa in la qabto ama la dilo ama la haleelo hadnoqoto xilli nabi hore uu gutay, hawshii nebigu u soo diray xilli uu gutaysay u noqoto asagoo rabaa iyo albaabkii daakilka ka xirtaa. falamantaha markii uu gaaray ilaa beytihi abi raafic gurigiisa faidaa huwa waaba asagoo abi raafic fii beytin guri dhexdii yahay mulimin oo mugdi ah wasata ciyaalihi ciyaalkiisana dhexda ka fadhiya ama ka dhex jiifa. allahu akbar, see loo duwayaa marka ciyaalkiisii ayuu dhexda ka jiifaa. gurigu waa mugdi, qof u jeedaa markaa malaha. meeshaasuu markaa soo gaaray, meeshaas ayuu markaa ugu yimid uuna markaa ku arkay. mar allaala markuu soo gaaray meesha uu soo gaaray oo arrintaasi saa ay dhacdo arrintaa uu arkay waaba ninkaanu ciyaalkiisa dhexdiisa markaa ku jira, wasta ciyaali ayuu bartamaha iyo dhexda kaga jiraa, dhinaca iyo naaxiyada iyo meesha uu jiifo. fanaadaahu waa u dhawaaqay oo wuxuu yidhi yaa abaa raafic muxuu rabaa hee in la dhaho oo meesha heeda ka soo baxday inuu markaa aado. meeshaasuu markii dambe aaday oo wuu baxay waa u naadiye. fanaadaahu waa u dhawaaqay oo wuxuu yidhi yaa abaa raaficow. qaala wuxuu yidhi man haada, waa kuma? waryaala waxa abi raafic lahu guriga iigu jira. man haada? faahwaa wuu u hobtay oo wuxuu u degdegay naxwa asawti dhankii codka. dhanka codka ayuu la aaday seeftiis. wadarabahu uu dhiftay darbata dhufasho bisayfi sayf ah. dhankii codka intuu kor ula qaaday sayftiisii yaa meeshii man haada ay ka soo yeertay ayuu la aaday, waana ku hoodiyey, wuuna markaa ku dhuftay. wahwa asaguna waa abi raafice dahshun uu yahay mid caya. dahshii wareer yar baa ku jira, ilaan guri baad ku dhex jirtaa, waa xisni yahuudeed. dhibaato fara badan inay soo gaarto waa suuragal. xaaladahaasaa markaa jira, marka waxoogaa dahshi iyo wareerna waa ku sugan yahay ninkii cabdulaahi ahaa. famaa aghnat shay-an waxba kama tarin. dhifeeshada uu ku dhiftay waxba ma tarin. fakharaja uu soo baxay oo bannaankuu ka soo aaday. cabbaar buu ka maqnaa. uma ka bacdi jaa'a waa u yimid mutagayiran asagoo bedelay sawtuu codkiisii. hadduu marka hore cod weyn ku hadlayna wuu yareeyey, hadduu cod yar ku hadlayna marka markii uu saa sameeyey intaa waa soo baxay, bannaankuu soo aaday. markuu bannaanka yimid kadib ayuu haddana wuxuu sameeyey inuu codkii u bedelay. codkii ayuu markaa bedelay. uma jaa'a mutagayira sawtu kaannahu waxaad moodaa sidii wuxuu iska dhiganin yuciinuhu kaalmaynayo.
qayladan iyo oohintan yasiqo uga soo gurmaduu ka dhigay wa qaala wuxuu yidhi maa haada qawm codkan waa maxay ya abaa maxaa waaye buu yidhi kaa yeera faqaala wuxuu yidhi abii raafic liummikan wey hooyadaa hoog ha u sugnaadee ina rajula nin oo filbeyti guriga ku jira ayaa darabanii bisayfi seef igu dhuftay hadeertaan nin guriga ku jira seef igu dhuftay buu yidhi ilaan hadal dheer buu hadda ku hadlay facamida wuu la qasday oo wuxuu la-eg ilay xaggiisa wadarabahu darbatan dhufasho ayuu ku dhuftay haddana afqanahu tabar dhigtay ma dhiman laakiin dhufasho kale oo tabartii dhan ay ka baabaaday abii raafic walam yaqtulhu laakiin aysan dilin ayaa ku dhacay fawadaca markaasuu saaray asayfa sayftii fii batnihi calooshiisa wataxamala calayhi wuu isku dul xambaaray marka xoog buu ugu cuskaday intuu dhabarka meeshaa ka saaray imtiqaana batniga caloosha ee sayftii ayuu dul koray macnaha saasuu ugu riixay waay wataxaamala wuu ku xambaaray calayhi korkiisa wuu isku xambaaray xataa akhada ilaa ay soo baxday ama uu aaday fii dahrihi dhabarkiisa xoog ugu waday ilaa dhabarkii ka soo baxday uma kabacdi kharaja wuu soo baxay wuu soo baxay yaftaxu alabwaaba asagoo albaabaha u furahaya baaban albaab buu markaa u furaayayoo horuu markaa u xirtay markaasuu markayuu markaa usoo baxay buuna markaa usoo daadegay markuu saa u soo baxay ayuu albaab markaa u furay uma kharaja wuu soo baxay yaftaxu alabwaaba asagoo albaabaha furaaya baaban walleyli habeenkuna biqumurin uu ahaa habeen dayax uu markaa jiray wabasaruhu araggiisana daciifun wuu daciifsanaa cabdulaahi araggiisana wabillahi tawfiiq wallahu subxaanah wa tacaala aclam.